la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee dadka la haybsooco Barkhad Jaamac Xirsi ayaa caasimadda Soomaaliland Hargeysa ku soo dhaweeyay laba mas'uul oo ka yimid dalka Sweden kana socday hay'adda magaceeda la yiraahdo PDF kuwaas oo dalka u yimid inay mashaariic horumarineed ka fuliyaan la taliyaha madaxweynaha ee dadka la haybsooco ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysay maanta labadan mas'uul ay tahay sidii ay u dheendhayn lahaayeen xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadkaasi isla markaana sheegay inay soo marin doonaan gobolada dalka iyo waliba deegaanada ay ku nool yihiin dadkaasi waxaanu ku faraxsanahay inaanu soo dhaweyno laba mas'uul oo dalka Sweden ka yimid kana socda hay'adda la yiraahdo PDF oo hay'ad international dalkana u yimid inay mashaariic horumarineed ka fuliyaan gaar ahaan waxay u yimaadeen inay hadda indhayn ku sameeyaan xaaladda dhabta ah ee bulshada laga tirada badan yahay ee gobolada Soomaaliland waxayna u yimaadeen oo doonayaan in mashaariic horumarineed ay ka fuliyaan deegaanada dadkaasi degan yihiin haddii ay tahay iskuulada haddii ay tahay MCH-yada iyo haddii ay tahay kobcinta aqoontooda maadigaaba annaguna ka institution ahaan iyo ka dawlad ahaanba waanu ku faraxsanahay maatinkooda waxaan rajaynaynaa inay wax badan ay qaban doonaan xiriir muddo socdana waanu lahayn waxaana toos ula shaqayn doonaa akaademiyadda horumarka iyo waxbarashada dadka laga tirada badan yahay waxaanu geyn doonaa gobolada Sanaag Sool Togdheer Saaxil iyo awdalba indoodana way ku soo arki doonaan labadan mas'uul ee ka socday hay'adda PDF magacoodana la kala yiraahdo Master Eric iyo Anderson ayaa iyaguna halkaasi hadallo kooban oo ay ka jeediyeen sheegay inay tahay markii uu horeysay ee ay Soomaaliland yimaadaan aadna ugu faraxsan yihiin imaadinka halkan ujeedada ay u yimaadeen ay tahay sidii ay u eegi lahaayeen xaaladda dhabta ah ee ay ku nool yihiin dadka la haybsooco iyo sidii ay wax ula qaban lahaayeen